بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah Iran oo si cad u sheegtay in ay beegsan doonto maraakiibta Mareykanka Israa'iil iyo xulafadooda haddii ay isku dayaan in ay ka gudbaan marinka Hormuz dhinaca kale ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ayaa sheegaya in ay beegsadeen laba markab oo isku dayay inay ka gudbaan marinkaasi oo ka dhaga adeegay amaradii la siiyay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegaya in weerarada ay wadaan iyaga iyo Mareykanku ay sii socon doonaan ilaa laga gaarayo ujeedooyinkooda. Spain oo safiirkeedii kala baxday magaalada Tel Aviv ee Israa'iil isla markaasna hoos u dhigtay maqaamkii dhanka diblomaasiyadda. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa Iran oo la sheegay in ay burburisay 17 goobood oo xasaasi ah oo Mareykanku uu leeyahay. Waxaana ka mid ah 11 saldhig. Soo duway ayaa qadka ku jira. Maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn. Militariga Iran ayaa sheegaya maraakiibta ay leeyihiin Mareykanka, Israa'iil iyo xulafadooda oo raba inay ka gudbaan marinka Hormuz in la bartilmaameedsan doono. Markab kasta oo wada saliid ama agab kale oo ay leeyihiin dowladaha Mareykanka, Israa'iil iyo wadan kasta oo cadow ku ah wadanka Iran ayaa loo tixgelinayaa inuu yahay bartilmaameed qaanuuni ah sida ay sheegayso xarunta dhexe ciidamada militariga ee Khatimul Anbiya. waxaa sidoo kale lagu celiyay in Iran ciidamadeeda qalabka sida aynan marnaba ogolaan doonin hal litir oo shidaal ah in uu ka gudbo marinka Hormuz. ciidamada ilaalada kacaanka ee wadanka Iran ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamadooda badda ay xabada ku fureen joojiyeenna laba markab oo marayay marinka Hormuz kadib markay iska indhatireen digniino loo jeediyey sida bayaanka lagu sheegay wakaaladda wararka Iran ay tabisay ay soo saareen ciidamada ilaalada kacaanka. waxay ciidamadu sheegeen in markabyadaas oo mid laga leeyahay Israa'iil watayna calanka wadanka Liberia kan kalena la beegsaday oo asna isku dayay si qaanuunka khilaafsan in uu ku gudbo marinka Hormuz. waxayna iska dhigatireen bayaanada ka soo baxaya ee digniinada ciidamada ilaalada kacaanka ka hor intaana xabada lagu furin oo la joojin. banduulaha ciidamada ilaalada kacaanka ee wadanka Iran ayaa sheegay markabkii isku daya in uu ka gudbo marinka Hormuz waxa waajib ah in marka ugu horeysa uu ogolaasho ka helo ruqso ah wadanka Iran. labadaasi markab waxay iska indhatireen digniinta hore loogu jeediyey waxaana lagu tilmaamay in ay moodayeen ballanqaadyo maran laakiin khatar ayay isgeliyeen labadaasi markab. Iran ayaa duqeysay oo waxyeello gaarsiisay ugu yaraan 11 goobood oo uu Mareykanku ku lahaa wadamada gacanka inta dagaalka lagu guda jiray waxaana la bartilmaameedsaday raadaaro qalab isgaarsiin sida lagu sheegay wargeyska ka soo baxa Mareykanka New York Times oo soo xiganaya lafagorayaal iyo sawirro laga soo qaaday satellite-ka oo muujinaya waxyaabaha dhacay. wargeyska waxaa kale oo uu sheegay 11 goobood oo uu Mareykanku leeyahay inay waxyeello gaartay. warbixintu waxay sheegaysaa waxyeellada inta badan gaartay goobahaasi aad in ay u xun tahay ayna dhib badan tahay in la dayactiro. waxaana intaas lagu daray iyadoo la soo xiganaya saraakiil Mareykana in Iran ay awood u leedahay in ay duqeyso goobihii ay hore u sheegtay oo hore loogu wargeliyay madaxweyne Trump maamulkiisa. gudoomiyaha gobolka Lorestan ee wadanka Iran ayaa sheegaya 52 iskool ama dugsi iyo 5 xarumood oo caafimaadka inay waxyeello gaarsiiyeen duqeyn ay u geysteen Mareykanka iyo Israa'iil sida lagu sheegay wakaaladda wararka ee Tasnim. weeraradaasi ayaa lagu burburiyey in ka badan 2500 oo guri iyo goobo ganacsi oo ku yaala deegaano badan oo ka mid ah gobolka Lorestan halka 13 xarumood oo cayaaraha lagu cayaaro 2 xarumood ay leeyihiin lanqeyrta cas oo 2 xarumood oo ay leeyihiin lanqeyrta cas oo 2 xarumood 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 ay leeyihiin lanqeyrta cas oo 2
badbaadada ku howlaneed ayadana la weeraray sida uu gudoomiyuhu sheegayo. wasaaradda waxbarashada ayaa sheegaysa 206 arday iyo macallimiin isugu jira in weerarada Mareykanka iyo Israa'iil in lagu dilay 161 kalena in lagu dhaawacay. Ali Reza Kazemi ayaa hadalkan ka jeediyay asagoo ka qayb galaya mid kamid ah munaasabad lagu aasayay taliyaashii ku dhintay dagaalka. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz ayaa sheegaya in duqeynta wadajirka ah ay Mareykanka iyo Israa'iil qaadayaan ay ka dhanka Iiraan inay sii socon doonto inta loo baahdo. howlgalkaasi waa sii socon doonaa buu yiri ilaa iyo inta aan u baahannahay xadna ma yeelan doono ilaa aan ka gaarayno dhammaan hadafyada aan leenahay. go'aankaasna waxaa lagu gaari doonaa natiijada ka dhalata howlgalkeena. Reza Pahlavi oo ah wiilka shaahii xukunka laga tuuray ayaa sheegaya in waddankiisa uu gaaray marxalad aad xasaasi u ah, wuxuuna ugu baaqayaa shacabka inay xaqiiqsadaan in ay ka baaqsadaan inay waddooyinka isugu soo baxaan isla markaana ay guryahooda joogaan iyadoo ay socdaan duqeyn goobaha shaqadana inay ka baaqsadaan oo mudaaharaadyo sameeyaan. Pahlavi ayaa la hadlayay xubno ka tirsan ciidamada ammaanka oo ugu baaqay in ay ka baxaan ciidamada oo ay ku biiraan shacabku, waa siduu hadalka u dhigaya, sugaanna baaqa ugu dambeeya, waa siduu hadalka u dhigaya. xukuumadda Spain ayaa si rasmi ah safiirkeeda uga qaadatay Israa'iil, waxayna tan tilmaan u tahay in xiriirka diblomaasiyadda labada dhinac u dhexeeya uu xumaaday. go'aankan ayaa u muuqda in Spain saraakiisheeda ay ku daabaceen warbaahinta rasmiga ah ee Gazette la yiraahdo lagu xaqiijinayo tallaabadaas inay xukuumadda qaadatay 24 saac ka hor. safiirkii Spain u fadhiya Tel Aviv ayaa waxaa loo bedelay hawshiisii in uu ka shaqeeyo qonsul. xukuumadda Spain ayaa u yeeratay safiirkeeda September-tii lasoo dhaafay kadib markii xiisad labada dhinac ay ka dhex dilaacday, dood weynna ay ku dhex martay cambaareynta ay xukuumadda Spain cambaaraysay waddanka Israa'iil oo xadgudub ku sameynayay marinka Gaza, xasuuqna ka geystay. haweeneyda u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda ururka midowda Yurub Karas ayaa sheegtay in ururka midowda Yurub ay isku afgarteen in ay bartilmaameedsadaan 19 shakhsi iyo ururo lagu tilmaamay inay xadgudub bini aadam oo lagu xiriirinayo waddanka Iiraan ay geysteen kadib markii dad mudaaharaadayaal ay tillaabooyin ka qaadeen. tillaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dagaalka Israa'iil iyo Mareykanka ee ka dhana Iiraan uu socdo isla markaasna gobolka oo dhan saameyn ku yeeshay. ururka midowda Yurub waxa ay sheegayaan in ay shakhsiyaadkan tillaabo ka qaadayaan iyadoo dagaalka Iiraan uu weli socdo. ururka midowda Yurub waxay leeyihiin waxaan difaacaynaa danaheena, waxaana wadi doonaa tillaabooyin la isku halayn karo oo aan kaga hor imaanayno waxa laale iyo wixii danaheena ka soo horjeeda. waa hagaag maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashana way mahadsan yihiin. daawadayaal mar kale soo dhowaada. waxaan u gudbaynaa falaaqaynta wararka iyo wixii warah degdeg ah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno. ha yeeshee aynu ku hakanno qadar falaaqayntaan u gudbaynaa, laakiin aan eegno wararka degdega ah ee hadda soo dhacaya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa intaynu barnaamijka ku jirnay wuxuu la hadlay telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay. wuxuuna sheegay in dhowaan dagaalku uu soo afjarmi doono. wuxuu yiri ma sheegi doono yiri waqti cayiman, laakiin waxaan go'aansan doonaa marka dagaalkaasi uu dhammaan doono, kadibna uu dhammaan doonaa. waaya halkaas daynu ka qaadana maxamed, Iiraan awood bay muujinaysaa. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waynu arkayna hadalkiisa. go'aanka Trump haddii yirahdo xabaddu waa joogsanaysaa, Iiraan ma aqbalaysaa way kula tahay? maxayse khubarada ka tiri arrintan? marka ugu horeysa madaxweynaha Mareykanka hadaladiisa Iiraan waxba ka soo qaaday mayso. hore ayay Iiraan u sheegtay inaynu kulan toosa la geli doonin dowladda Mareykanka. labadii kulan oo ugu dambeeyey wada hadallada ahaa oo midna uu sanadkii hore dhacay midna uu hadda dagaalkan ka hor dhacay, labadaba
iiraan waxay ku eedeynaysaa maraykanka asagoo wada hadalka ku jira ayuu xadgudub sameeyey. tan kale oo ayadana soo noqnoqota ayaa waxay tahay hanjabaadan joogtada uu jeedinaya madaxweynaha maraykanka iyo xaqiiqada dhulka jirta inay kala fog yihiin. khabiirada oo dhan dadka lafagura arrimaha militariga kuwa sirta kulli waxay isku raacsan yihiin maraykanka qorshihii uu lahaa iyo macnihii uu ka lahaa dagaalkan iyo ujeedadii uu lahaa inay fashilantay. xukuumadda iiraan inaan la ridi karin waa caddaatay. hogaamiyihii hore habeenkii koowaad ee dagaalka ayuu dhintay. waxaa la doortay hogaamiye cusub. hogaamiyaha cusub waxaa la isku raacay inuu ka dhalinyar yahay kana xag jirsan yahay aabihiis. waxaa kaloo la isku raacay in uunan tanaasuli doonin maraykankana waqti iska gelinayn howlihiisana wato duqayn joogtaana inay ku wadaan danaha maraykanka. waxyaabaha hadda soo kordhay oo aad loogu nuxnuxsanaya ayaa waxay tahay in maraykanka iyo xulufadiisa ay mamnuuc ka yihiin in ay maraan marinka hormuus, laakiin wadamada kale oo dhan waa mari karaan. arrintaasi culays weyn ayay maraykanka ku keenaysaa. hanjabaadan uu jeedinayo dagaalku waan soo afjarayaa. doodaha qaarkood oo goobaha lagu lafaguro arrimaha siyaasad juqraafiyaadka caalamka ayaa waxaa laga hadlayaa maraykanka maadaama asaga oon filaynin dharbaaxi xoog lagu dhuftay dagaalkana aad moodo in looga gacan sarreeyo. maxay tahay waxaan uu ku hanjabaya oo dagaalku waa kusoo afjaraya? ilaha qaar ayaa waxay leeyihiin waxa uu sarbeebayaa, waxaa laga yaabaa in uu isticmaalo nuclear farsamaysan. nuclear farsamaysan isticmaaladeeda ma sahlanaan doonto. haddii inta uu isticmaalo ay iiraan hakan weydo maxaa xiga ayaa la isweydiinaya. tan kale israa'iil iyo maraykanka hadda xaalka siduu yahay, dagaalkan duqaynta joogtada ah ay ku socota israa'iil ma sii xamili karto ayay leeyihiin khabiiradoo dhan isku raacsan yihiin. waxaa kaloo ayadana socota dadaal fara badan oo la rabo in lagu joojiyo dagaalkan oo golaha ammaanka xataa olole laga bilaabay oo wadanka Bahrain ayaa soo gudbiyey qaraar fadhi degdega looga yeelanayo dagaalka. waxaa la isku raacsan yahay dagaalkan. iiraan hore, Soomaalidu waxay tiraahdaa ama afeef hore lahaw ama adkaysi dambe lahaw. dagaalka intuuna bilaaban ayaa iiraan warqad waxay u qortay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku sheegayso haddii maraykanka iyo israa'iil ay dagaal ku soo qaadaan in wadamada looga soo duulo dhan ay gacanta saari doonto. haddana waxaa soo caddaatay iiraan inay awood ballaaran leedahay oo wadamo badan ay hal mar weerari karto. su-aal kale ayaa iyadana soo noqnoqotay oo ah wadamadan carabta ee gacanka saldhigyada militariga ay ku lahaayeen maraykanka uu ku lahaa, haddii ay dagaal ku biiraan maxaa dhici kara? dagaalka hadday ku biiraan haddaynu ku biirin, maraykankii ugu awoodda weynaa ayaa meelow galala. wax weyn oo ay kordhinayaan lama arko. laakiin hadda xaaladda socda laftirkooda waa baraarugeen. 40kii sane ee lasoo dhaafay lacagta iyo agabka looga guranayay waa laidin difaacayaa. maraykankiibaa hadda gacmihiisa ku gabanaya. waa gartay. waa yahay arrinta aad soo hadal qaaday maxamed, golaha ammaanka ee qaramada midoobay fadhiga iminka ayuu socdaa. waxaana muuqanaysaa intuu fadhigan uusan qabsoomin ayaa waxaa warbaahinta la hadlay qaybaha saxaafadda. waxaa la hadlay danjirayaasha wadamada carabta, gaaraan kuwa khaliijka. waxay aad u dhaliilaan iiraan, iyagoo sheegaya iiraan inay xadgudub wadda ayna tahay inay joojiso xadgudubka ay ku hayso madax banaanida wadamadaasi. laakiin marna may soo hadal qaadin weerarkii lagu qaaday iiraan oo maraykanka iyo israa'iil ay qaadeen 28kii bishii February. iiraan waxay ku doodaysaa waxa weeye saldhigyadiina ayaana la soo weeraraya, waxaana weerarayna waa saldhigyada, laakiin ma ahan inaan wadamada weerarayno. inay yiraahdaan iiraan dagaalka ha joojiso, laakiin maraykanka iyo israa'iil aysan ugu baaqin dagaalka inay joojiyaan iyaguna maxay ka turjumaysaa? George Galloway oo ah nin siyaasi hore baarlamaanka Ingiriiska ka tirsanaan jiray, haddana baraha bulshada arrimaha siyaasada juqraafiyeedka aad uga hadla, ayaa waxa uu wareysanayay Maxamed Marendi oo ah professor wax ka dhiga jaamacadda Tehran. wuxuuna sheegay dagaalkan wixii laga bilaabo caa'ilaadka wadamada carabta xukuma gaar ahaan gacanka ma sii jiri karaan, sababtoo ah waxa weeye waxa abuuray buu leeyahay
oo ay u shaqeeyaan cadowga. iiraan ma ogolaan doonto in ciidamo ajnabi ah inta waddamadooda ay yimaadaan inay iiraan soo weeraraan, ayagana shacabkooda ayaa tallaabo ka qaadi doonaa. arrimahani waa arrimo aad u fog. waddamadana kulligood waa nugul yihiin, waxayna arkeen inay nugul yihiin markay arkeen gantaalada aan kala joogsiga lahayn ee ku dhacaya saldhigyadii militariga ee Maraykanka. haddii ay dagaalka galaana qasriyadooda ayay beegsanaysaa Iiraan, laakiin Iiraan mas-uuliyiinteeda oo madaxweynaha ka mid yahay af buuxa ayay ku sheegeen, annaga walaalaheena deriska xumaan uma qabno, dagaal kuma qaadayno. xeryahan militariga ee laga dhex dhistay waddamadooda ee mu'aamarada laga wada ee waddankeena looga soo duulayo ayaan tillaabo ka qaadaynaa. haddii ay dhibaata soo gaartayna raaligelin ayuu ka jeediyey, laakiin ma muuqato waddanka Baxrayn leeyahay wuu liiqliiqanayaa. wararka ka soo baxay oo dhan siday sheegayaan, waddanka Baxrayn shacabkiisa 60% waa shiico, 40% waa sunno sida hadalka loo dhigo. waa waddan xoog lagu haysto shacabkiisa. boqortooyada ama waddanka amiirka ka taliyana waa nin lagu yaqaano in uu u naxariisan shacabkiisa, aadna waa sida Iiraan ay hadalka u dhigayso, aad ugu jajaban oo u adeega cadowga. waa gartay, waa yahay. aan u imaanno warka la xiriira dagaalkan Iiraan dhanka falanqaynta haddii aan kusii soconno. khubaro badan waxay leeyihiin mar walba waxay ahayd qorshaha Iiraan haddii la soo weeraro adduunyada inay ka shalayso. arrintaas waxa laga yiri iyo bal khubaradan inoo faahfaahay Maxamed. Hamid Reza oo agaasimo ka ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha siyaasadda caalamka ayaa waxay sheegaysaa Iiraan inay xaq u leedahay inay nafteeda difaacdo. wuxuuna intaas ku darayaa in waddankiisa, ninku waa Iiraani, uu digniin ku bixiyey weerar kasta oo lagu soo qaado Iiraan in uu noqon doono mid gobolka weerar lagu qaadi doono, sababtoo ah saldhigyada militariga ee laga soo weerari doono Iiraan ayaa ku yaala halkaas. taa beddelkeedina waxa ay saameyn ku yeelanaysaa caalamka intiisa kale. sidoo kale warkii xukuumadda Iiraan ay sheegaysay wuxuu yidhi dhab uma uusan qaadan Maraykanka, laakiin haddeertaan ayuu xaalad xaraj ah dhexdooga jiraa. waddamada deriska buu yidhi saameyn xoog leh ayay ku yeeshay dagaalkani, qayb ahaanna caalamku uu ku yeeshay dagaalkan. xaqiiqadu waxay tahay Maraykanka saldhigyadiisa ayaa halkaas ku yaala oo loo isticmaalaya in lagu weeraro Iiraan. Iiraanna xaq waxay u leedahay nafteeda inay difaacdo, waxayna hadda fulinaysaa xuquuqdeeda asaasiga nafteeda ku difaacayso. waxayna hubsatay oo ay la wareegtay marinka Hormuuz. amniga Iiraan waxa uu amni u yahay gobolka oo dhan. amniga gobolkana waxa uu amni u yahay waddanka Iiraan, sidoo khabiirkan hadal ku dhigayo. amniga Iiraan macnaheedu waxa weeye amniga dhaqaalaha caalamka. xaqiiqadana waxay tahay adduunka oo dhan ayaa u baahan in ay arrintan ku baraarugaan. haddii Iiraan la weeraro, caalamka oo dhan ayay qiimo weyn ugu fadhiisanaysaa oo cawaaqibka dagaalkaas ka dhasha Iiraan keliya kuma koobnaan doono. waa gartay. dhanka Maraykanka askartii laftigoodii iyo khubaradii waxay ka hadlayaan dagaalkan oo ay ku tilmaamayaan inuu yahay dagaal aan dan ugu jirin. halkaas bal inooga warran waxaa laga yiri Maxamed. askarta Maraykanka ayaa waxaa lagu sheegayaa in ay u dagaalamayaan Israa'iil iyo dabaqad lagu sheegay Epstein. Epstein waa ninkii fadeexada dhex fadhiista weeye, ilmaha farxumeyntooda iyo waxa la xiriira ay soo baxeen. sidoo hadalku u dhigayo Fuad Azadi oo la fagura arrimaha siyaasadda, isla markaasna macalinka ah daraasaadka caalamka ee jaamacadda Teheraan. Azadi waxa uu leeyahay Iiraan dad rayid ah ayaa dhibaato badan soo gaartay intuu dagaalka socday. wuxuuna ku doodayaa waddankiisa adkaysi xoog leh ayuu leeyahay. natiijada ugu dambeysana Iiraan ayaa qaabeynaya. Iiraan waxaa laga yaabaa khasaaro badan inuu soo gaaray. ilaa hadda dadka dhintay waa 1500 oo rayid ah oo ay ku jiraan 165 gabdhood oo iskuul dhiganayay oo Maraykanka uu duqeeyey dagaalka markii uu bilaabanayay.
taa macnaheeda maaha buu yidhi iiraan in dagaalka laga adkaanayo. iiraan askarteeda dagaal xoog leh ayay ku jiraan, meedaankan waa taagan yihiin, waxayna noqonayaan kuwa qaabayn doona qaabka ay colaadani u dhammaanayso. dagaalkana wuxuu noqonayaa dagaal dheer oo saameyn weyn ku yeesha gacanka. waa tahay waa yahay aynu eegno wararka marka degdega hadda soo dhacaya. waxaa laleeyahay qaraxyo ayaa waxaa laga maqlayaa dhowr magaalo oo ku yaala waddanka Iiraan. Busheher iyo Hamadiin ayaa ka mid ah. dhinaca kale taliska ciidanka Mareykanka CENTCOM ayaa waxay leeyihiin dadka shacabka Iiraaniyiintu ha iskaga fogaadaan xarumaha dekedaha. tan waxay ka macno tahay in la duqeyn doono dekedaha. dhinaca kale wargeyska New York Times ayaa waxa uu leeyahay isagoo soo xiganaya saraakiil ka tirsan ciidanka Mareykanka, waxaa muuqanaysa Mareykanku inay mas'uuliyadda qaadanayaan weerarkii lagu dilay gabdhaha ee ka dhacay magaalada Minaab 160 iyo in ka badan lagu dilay. arrinkaasi oo hadda wargeyska uu sheegayo in Mareykanku dusha ay u ridanayaan, walow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu yiri cid kaloo haysata gantaalo Tomahawk ayaa laga yaabaa inay duqeysay goobtaasi. waaya aanu imaana Maxamed, midowga Yurub Kaya Kallas waxay ku dhawaaqday 19 qof oo Iiraaniyiin in la saaray cunaqabatayn, laakiin midowga Yurub ilaa hadda kama uusan hadlin iskuulkaas gabdhaha yaryar iyo wiilasha wax ku noqday oo galaaskooda iyaga dhex fadhiya. sidee hadhow midowga Yurub uga hadli karaa qiyam iyo xuquuq aadana iyo dimuqraadiyad markii ay leeyihiin dad banaanbaxay Iiraaniyiina, mas'uuliyiintii mas'uulka ka ah dhibaatadii loo geystana cunaqabateyn baan saaraynaa, dhinaca kalena la xasuuqay sida Iiraaniyiintu ay ku doodayaan ilmo yaryar oo iskoolkooda dhex fadhiya. wixii ka horreeyay dagaalka marinka Gaza, Yurub waxa laaliya waxay sheegaan waxaa jiri jiray dhinacyo dhegeysta oo ay isaga dhigi jireen in ay u helan yihiin inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta xuquuqda aasaasiga ee suxufiyiinta, dadka rayidka, caruurta, dumarka. laakiin waxaa soo baxday wixii ka dambeeyey dagaalka marinka Gaza ee xasuuqa aragtay loo geystay Falastiiniyiinta, Israa'iil in aynan marna cambaarayn. hadda dhibaatooyinka iyo dagaalka wax dhacaya war allaaliya warkay soo saaraan waa war ayaga ku kooban weeye. caalamka intiisa kale waxa dhacaya waxaa loo arkaa sida maalin walba ay u dhacaan. cid war laga sugayay, cid kaloo war laga qaadanaya ma jirto. cid walba kaalinta ay leedahay iyo waxay sheegayso iyo dagaalku siduu yahay cid walba la socota. baraha bulshada ayaa waxay noqdeen kuwa ka horeeya wakaaladaha wararka iyo idaacadaha reer galbeedka ay leeyihiin iyo wargeysadooda. hadda caalamka oo dhan waxaa socda oo marinka Gaza ka socda, Israa'iil ka socda, Iiraan ka socda, gobolka gacanka ka socda, cid ay ka qarsoon yihiin lama arko. warqadaha ay soo saarayaan khabiirada qaar waxay hadal ku dhigayaan khadda ay ku qoreen ayaa ka qiimo badan. iska daa inay qiimo kale warqadu leedahay. waa tahay waynu arki doonaa wixii arrimahaasi kusoo kordha. Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashanu ay mahadsan yihiin. inta ayaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka. daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn, hadda kusoo biir. aynoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa nabadgelyo.